kusoo dhawow Somali Academy haddii aad ka cusub tahay channelka fadlan subscribe notification furo siday kusoo gaaraan casharada cusub ee guriyada isla markaa la soo dhigo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Our lesson is about today lesson 14 role of use. عشر كلمة أنت حكوا سابسين lesson 14 وعشر كأفري طبنات role ودورك of use لأن يرضى. وأنا جو خالد عبد الله 10 كورة ما يستران. اوكي 10 كلمة أنت حكوا سابسنا role of use دورك لأن يرضى مركا وحويان وذا شيء كيس A يبي وذا قادنية مركا A أيها اللي يحوري what's the role ويتر مدلك بها اللي حر هيرس يورمين واتن عن تراضي انتو يورمين عن تراضي كراحيس هيرس يورمين واتن عن تراضي انتو يورمين عن تراضي كراحيس. what's the role maxay doorka of use dhalinyarada ee Soomaaliya dalka Soomaaliya ama Soomaaliya towards ay ku jihaysan development kobcinta their country wadankooda. I can see biba jawaabay markaa wuxuu I can see waxaan oran karaa our use dhalinyaradeedu has our use role doorka dhalinyaradeedu our use role doorka dhalinyaradaas become wuxuu noqday jiwin qaad calaaliska qaadka ama cunista qaadka. What's the role of use in Somalia towards developing their country? I can say our use role become jiwin qaad. Ayba hadlay wuxuu don't they think of developing their country? Don't they think miyay ka fikirin of developing kobcinta their country wadankooda? Don't they think miyay ka fikirin developing kobcinta of developing kobcinta their country wadankooda? Ayba hadlay markaa biba hadlay wuxuu most of them badankoodu think waxay ka fikiraan how to go abroad sida dibadda loo tago. Dhalinyaradu waxay ka fikiraan sida dibadda loo tago imika. Don't they think miyay ku fikirin of developing kobcinta their country wadankooda? Most of them badankoodu think waxay ka fikiraan how to go abroad sida dibadda loo tago. Waa sida ay tahay maanta dhalinyarada Soomaalida. halkaas maanta casharkeena uu ku saabsanaa role of use doorka dhalinyarada. ha ilaabin inaad subscribe gareyso kanaalka siina share gareyso casharada.